halkani waa degmada Xudun ee gobolka Sool waxa ay yeelatay golaheedii deegaan ee u horeeyay kaas oo ka kooban 9 xubnood mayor ku-xigeenka degmada Xudun ay weheliyaan dhalinyarada gobolka Sool waxa ay kormeer ku tageen xarumaha dawladeed ee ka jira degmada Xudun kuwaas oo burbur baan uu ka muuqdo muuqaalkani waa sariibada ama xarunta gowraca ee degmada Xudun oo burbur baan uu ka muuqdo hayeeshee dadka deegaanku markii ay waayeen cid wax u qabata ayada oo burbursan ay ku shaqeeyaan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Xudun iyo dhalinyarta gobolka Sool oo kormeeray xaruntaas oo burbur baan ka muuqdo waxa ay baaq dheer u direen jaaliyada ka soo jeeda degmada Xudun iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha waxa ayna ku baaqeen in degmada Xudun oo haatan yeelatay golahii deegaan ee u horeeyay ee bulshada deegaankaasi ay si iskooda u soo doortaan ay xukuumadda Soomaaliland iyo qurba joogtuba ay wax la qabato bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin halkan aynu joogno waxa weeye sariibadii xoolaha ee degmada Xudun dayac iyo baahi aad u fara badan ayaa ka muuqda waxaan u sheegaynaa dadweynaha iyo qurba joogta iyo waxa laala wixii reer Xudun ee jabka wax ku hayaba inay meesha tan wax ka qabtaan waa meeshii dadku ku noolaayeen xoolaha uu qali jiray sariibadii weeye dayacaad u fara badan baa ka muuqda waqti dheer ka hor waa ugu dambeysay wax laga qabto siday tahayna waad wada aragtaan waxba hadalka badin maayo bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin runaantii dhowr meelood baan marnay maanta oo degmada Xudun ku tirsan waxaan oran karaa meeshan maamul hore kama jirin maadaama maamul hore ka jirin dhulkii dawladdu ku shaqeynaysan ay nooca yihiin waxaan baaq u dirayaa wasiirka arrimaha gudaha hay'adaha khusayso dhamaantood waxaan leeyahay degmada Xudun ma horana uma lahayn maamul wixii maamulku dedejiya hadda maadaama golo deegaan oo shaqeynaya ay yimaadeen baahiyahooda loo dhiga furnaado wasiirka arrimaha gudahana waxaan si gaar ah ugu baraarujinayaa oo aan leeyahay wasiir dadkii gobolka iyo degmada u soo xil saaratay wax alaale waxay ka qabteen ma jirtee adigu soo gacan gali bulshada reer Xudunna la shaqeey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh joogtaan sida aad u jeedaan waa sariibadii degmada Xudun waxa ka muuqata baahi aad iyo aad u badan iyo dayac badan wax qabad hore ama dad hore iman jiray ma jirin halkan hadda waxaan la joogaa wafti dhalinyaro oo reer Xudun oo laascanood nooga timi oo indhaynaysa sida bilbeeshka meesha uu ku nool yahay muhiimiyada ah sida waxbarashada kale sida saldhig oo kale sida seelada oo kale hadda halka aad joogtaan waad aragtaan halkaas dadka xoolaha lagu qalaa halkan waa magaalada dhexdeedii wuxuu u baahan tahay in magaalada meel ka fog laga dhiso oo hadii dooliyin ay tahay cid ay qusayso arrimaha gudaha iyo hadii bulshada degmada ku nool ay tahay mid jooga ha ahaato mid qurba jirta aad iyo aad banaanana ugu dadaalayna sidaan nadaafada ugu shaqeyn lahayn aan magaalada ugu dhaxrar lahayn كمان شو هذا اللي قلبه هالكن مياه xoolaha lagu qalo waa halkan anaga soo halkan lagu qalo halkan way xoolaha waad aragtaa waxaad moodaa hogab ruwaad moodaa halkaas ay dumarku fariisataa oo maatada wax ku qalataa dadka alyoomku uu ka galay waa sariimadii noloshii koowaad weeye xaggana qaybtii kalena waa tan waa qayb la mid ah iyaduna qaybtii kalena waa aragtaan maamul hore iyo wax qabad hore oo degmada ka shaqeyn jiray ma jiro wasiirka arrimaha gudaha waxaan ku codsanaynaa iyo cidda arrintan ay u taalo waanu bilaabaynaa degmagaanadana waanu ka dhaxrarnaa inay nagala qayb qaadato ayaanu aad iyo aad aan u rajo weynahay waad aragtaan sida ay tahay ilaa iyo xilligii dawladda Soomaaliya oo la dhisay meelaha goobahan dawladdu ku shaqeyso cid ugu dambeysay ma jirto sida ay tahay waad aragtaan idina idin macallina goobihii kalena waynu tagi doonaa waynu ku soconaa goobaha burburka baani ka muuqday ee aan booqanay waxaa ka mid ahaa saldhigga degmada Xudun kaas oo burbur baani uu soo gaaray
burburka soo gaadhay saldhigga waxaa u weheliya in ciidamada bileyska ee degmadaasi loo soo tababaray loo soo daabulay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana taliyaha ciidanka bileyska oo ay weheliyeen maayir ku-xigeenka degmada xudun iyo sidoo kale xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan ee deegaanka xudun ay taliyaha ciidanka bileyska somalilan iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliya qaybeedka gobolka soolba ay ugu baaqeen in degmada xudun haatan ay u jeesatay wadadii horumarka islamar ahaantaasna loo baahan yahay in ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa bileyska la keeno deegaankaasi amaba lagu soo celiyo kuwii hore looga qaaday ee deegaan ahaan ka soo jeeday xudun sidoo kale waxa ay ku baaqeen in degmadu haatan ay u baahan tahay gaadiidka ciidanka bileyska oo ka howlgala maadaama ay degmadu xukunto tuulooyin badan oo hoos taga degmada xudun waa kuwan dhallinyarta iyo maamulka degmada xudun iyo ciidanka iyo taliyaha saldhigga degmada xudun oo arrimahaasi ka hadlaya bismillaahi raxmaan raxiim halkan waa saldhiggii degmada xudun wuxuu qabaa baahiyo fara badan baahiyaha waxaa ka mida gaadiid male dhismaha qabyada ka muuqata waa aragtaan geedhkiisu waa gaaban yahay gaadiid degmada hal gaari wada gaadhigiina hadda muddo 2 sana waa fadhiyaa ciidan waxaa leedahay 40 ciidan ay lahayd oo ciidankeedii gobolka loo raray wax ciidana saaka waxaa ku joognaa 8 nin oo ciidana iyo labada maamulka 10 kan bay ku joognaa meesha waxaana aad u codsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha jananka ciidanka bileyska inay baahiyaha madaxweynaha inay baahiyaha degmada ay si degdeg ah uga soo qabtaan oo degmadii waxay yeelatay golo deegaan shaqay u baahan tahay xoog leh ciidan la'aan iyo amni bileys ahaanna wax la'aan lama qaban karo si degdeg waxaan doonaynaa baahiyaha si degdeg in looga soo jawaabo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meelihii hore aan marinay saldhiggu wuxuu ka duwan yahay waa meel xafiisyo furan oo ciidan ku qoran yahay oo shaqaynaya taa micnaheedu waxay noqonaysaa ciidanka saldhiggu kuma filla waxaan ka codsanayaa taliyaha ciidanka booliska wasiirka arrimaha gudaha iyo cid kale khusaysoba horta ciidanka in loo kordhiyo haddaan loo kordhinayna ciidankii laga qaaday degmada in dib lagu soo celiyo inaan waxba kale wax lagu darnay intii in dib lagu soo celiyo baahida labaad ee taagan waxa weeye waa gaadiid haddaan meeshii gaadiid aan all waxaad qaban kartaa ma jirto deegaan balaaran baa degmadu xukuntaa saldhiggu xukumaa wuxuu u baahan yahay gaari waliba cusub oo baahiyaha oo waliba ereyadan oo dhan wax badan ka qaban karaa ciddii dembi culus leena gobolkii loo gudbiyo maadaama ay jeel aan jirin taas waa taa qodobka saddexaad ee ii muuqda aniga waxa weeye meel mitir iyo bara oo 10 askari ay joogaan cidda waxay qaban karaan waa wax yar iska kooban bulshada reer xudun ama dalka joogan ama dibadda joogan waxa uu baaqayaa inaad aqoomaan u furno bal waxaynu qaban karno aynu qabanno wixii kalena dawladdu ay soo gacan geliso codsiga waxaan u dirayaa taliyaha ciidanka booliska wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland dhammaantiin waxaan leenahay baahiyaha degmada xudun la eego dib loo fiiriyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan ka codsanaynaa taliyaha qaybta maadaama uu bedelkii naga hayo in loo tixgeliyo maanta oo naloo buuxiyo maadaama maamul cusub ka dhashay degmada oo cusub hadda niyuya sida la sheegay oo nimankii ugu horreeyay mas'uuliyiinta ay sheegeen iyo taliye Cismaanba la inoogu sheegay labada taliyaha iyo taliye ku-xigeenka iyo 8 askari oo dabla ah oo bileysa baa degmada jooga nama anfacdo kontonku nama anfaco boqolkaan anficin hal gaari baa nagu filayn waxaan u baahanahay mudane wasiir maxaad kaahin iyo taliyaha qaybta oo run ahaantii maalintii dhaweeyay maamulka lagu soo ansixiyay gobolka aad iyo aad mas'uuliyiinta degmada u soo dhaweeyay mudane taliye noo tixgeli ciidan iyo miisaan leh oo maaragtay gaadiidkiisa oo kala duwan leh ayaanu ka sugaynaa waana kaaga fadhinaa adiga cid aan hayn oo aanu ka sugaynaana ma jirto haddaanu nahay dadweynaha ku dhaqan degmada xudun anoo ku hadlaya afka shacabka degmada goobtan aynu saaka joognaa waa saldhiggii bileyska degmada xudun
run ahaantii saldhig degmo oo dhulka intaa leeg haysta oo boqolka ma jiro annaga unbaa helay nasiibna annaga u leh saldhigana aad aragtaan dhismaha aad aragtaan ee qadiimiga ah dowladdii hore dhistay siyaad bare waxaan ribeerinka iyo dayactirka lagu sameeyay haday deerka noqonaysa iyo haday qolalka noqonaysana waxaa dhisay injoo degmada ka shaqeeyay ugbaad tii aan filnay oo ka filnay xukuumadda Soomaaliland madaxweynka iyo madaxweyne Muuse Biixi maanu helin haddaan nahay shacabka intaan filnay waxay ahayd degmadan xudun waxaa laga sameeyay boolis waxaa loo sameeyay taliye boolis waxaa loo sameeyay taliye xubin boolis waxaa loo sameeyay ciidankii Soomaaliland ugu fiicnaa oo dhalinyartii degmada xudun heer secretary ahayd iyo heer jaamacadeed ayaan boolis ka dhigay annagoo rabnaa shacabkayga xudun nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda booliskaasna xukuumaddu dhan wasla qirtay dambi baarayaasha gobolladoo dhan iyo hadday gobolka la soconatay magaalada la soconatay waxay noqday boolis ay magaalooyin kale ka faa'iideystaan beddelkoodiina maan helin haddaan bulshada nahay waxaan noqonay meel bilaa ciidana iminkana shacabkii baan nahay doortay maayirka iyo maayirka iyo xubnaha golaha deegaanka waxaan rabnaa waxqabad jeedaan aanu taaganahay waa saldhigga degmada xudun baahiyaha ka muuqda iyo dayaca ka muuqda waad aragtaan mitirka deerka wuxuu taagan yahay 2 mitir qofka lagu soo xiro maxbuuska ah waa mitir iyo badh qofka lagu soo xiro amnigiisa lama sugi karo waana laga soo dhacayaa waana laga dhacayaa inta markaan ka gudbo halkan aanu taaganahay degmada xudun waxaa hoos taga 32 tuulo 32 tuulo waxa weeye waa degmada ugu magaalooyinka badan degmada xudun ku jirtaa waa heer gobol haddana hadda saaka waxa dhex taagan oo jooga sida aanu aragnay 8 askari iyo taliyaha ku xigeenka ciidankii degmadu ay lahayd waxaa loo raray gobolka loo celiyay waxaanu ka codsanaynaa taliyaha guud oo bilayska Soomaaliland madaxweynaha arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha cidda shaqadana oo quseeso inaanu helno wixii aanu ciidan u lahayn aanu maayir ku xigeenkii baanahay degmada xudun ninkana waa taliyihii bilayska weeyo saldhigga degmada xudun waxaanu idinka codsanaynaa inaanu helno ciidankii iyo agabkii iyo gaadiidkii aanu lahayn sida aad ku aragtaan saldhigga dayaco uga muuqdo inaad si degdeg ah u soo gacan gelisaan waayo maamulkii baan degmada ka dhaqaajinaynaa cashuurtii baa la cashuurayaa toobaleenkii baa la marinayaa ta kaloo labaysa degmada waad aragteen oo waxaan ka codsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha toobaleenkii degmada iyo amnigii ayaanu ka codsanaynaa wasiirka howlaha guud arrintaas cidda qosayso waxaan doonaynaa inay aad iyo aad u soo farageliso oo amnigu ugu horeeyo waxaan ku nuxnuxsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad madaxweynaha taliyaha bilayska guud wasiirka arrimaha gudaha taliyaha qaybta oo si wacan noo soo dhaweeyo gobolka si wacan aad iyo aad nagu soo dhaweeyay inta dhawataan tagnay intaba waxaanu ka codsanaynaa saldhigga gacanta koowaad in la soo farageliyo degmada xudun waxay ka mid tahay degmooyinka faca weyn ee gobolka sool waxaa haatan ka muuqda burbur baahsan halkani waa saylada lagu iibiyo xoolaha taas oo ka dhisan cariish yar oo kooban oo aan qaadin wax ka badan 15 neef waxaa hooyooyinka ku ganacsada sariibadaasi ay sheegeen inay dhibaato weyn ay ka soo wajahdo ku ganacsigooda geestooda xildhibaanada golaha deegaanka iyo meeyar ku-xigeenka degmada oo weheliyo cabdifataax ducaale jaamac oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka sool waxa ay ku baaqeen in wax laga qabto sariibadan oo dayac badani uu ka muuqdo islamar ahaantaasna waxa ay baaq dheer u direen xukuumadda Soomaaliland oo ay u horeyso wasaaradda arrimaha guduhu waa kuwan iyagoo mar kale ka hadlaya xaaladda sariibada degmada xudun meeshaan joogno waa sayladii xoolaha waad aragtaan dayac badan baa ka muuqda meel maamul hore ugu jiray ama waxqabad hore ka soo gaari jirtay dadka maaha waa waabta ayro 2 mitira waxana waaba la goostay oo waad aragtaan gidaaraaba ka dhisan yeelkeeda wax dadweyne leeyahay qof dhistay isaga un baa ku dhib qabo waa la isaga soo noqon doonaa laakiin hadda waxaan leeyahay dadka arrintan oo ay qusayso waxaanu doonaynaa inay si toos oo dhaman noola soo gacan geliyaan waliba annagu haddaanu nahay golaha deegaanka xudun waxaanu leenahay wasiirka arrimaha gudaha aad iyo aad inaad nooga soo gacan gelisid dhibaabahan degmada ka jira
inaad waad arki doontaa sida sariibadoo kale siiladoo kale saldhigga oo waxyaalo fara badan qabyo ay ka yihiin gurigii maayirka dowladda hoose meel maamul hore ka jiri jiray meeyna ama taqaanay waxaan leenahay inaanu annana aanu shaqeyno annana aanu helno wixii aanu u lahayn xaq iyo degmada xaquuqa u lahayd aad baan u salaamayaa waqtiguna waa kooban yahay waxaan ku soo dhaweynayaa niman dhalinyaro ah Cabdifataax hogaaminayo Cabdifataax Ducaale oo aad iyo aad nagu dhiirigelinaya sidii maamulka degmada uga dhaqaaqi lahaa sidii taliyaha booliiska oo nagu garab taagan shaqooyinka degmada ku socda isna aad iyo aad aan ugu hambalyeeyno Cabdifataax ku soo dhawow maantii magaaladan Xudun taariikhdeeda cidina ka warrami mayso maanta waa ayaan daro in Xudun barta taagnaato waxaan leeyahay bulshada reer Xudun horta bal dib isku noqdo bal dib fikra maamulkiinu ku diidanba baadana waxyaabaha danta guud ee la wada leeyahay oo laga shaqeeyaa run ahaantii maanta waxa jooga golo deegaan oo aad fartina ku doorateen waxaan ku baraajinaynaa annagu aanu ku gees qaraacaynaa bal xagga horumarka in loo wada dhaqaaqo nimankan oo niman dhalinyaro bilwad malaha muddo inuu shaqeeyaan bay doonayaan waxaan baa u dirayaa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay mudane madaxweyne degmada Xudun maanta wuxuu u baahan tahay heel insha Allah waxaan ka rajaynaynaa baaqa aan ku soo dirnay mudane madaxweyne inaad wax ka qabatid adulaadmo bismillaahir rahmaanir rahiim halkan aynu joognaa waa sayladii xoolaha aanu indhayn ku sameynayno anaga xildhibaanadii iyo maayir ku xigeenkii iyo qolo dhalinyaro oo nooga timi laasacaanood oo indhayn ku sameynaya dayactirka magaalada sariyada sida sayladda maxay ahaytooy guriga maayirka oo dayacyo fara badan ka muuqdaan waxaanu leenahay dawladda Soomaaliland iyo bulshada reer Xudun ee qurba joogta ama dal joogta kii allaale kii inay gacan ka geystaan dayacan ka muuqda meesha tan aad aragtaan waa sayladii 5 neef ariga baa ku xiran hadii 20 neef isugu timaado qorraxda lagu xiraa hooyooyin fara badan oo ku dayacan baa meeshan jirto oo qorraxda fadhiista marka 10 neef lagu soo xiro dadku dibadda ay hogtaan 20 neef wax ka badan lama gelin karo waabta yar dayaca bacow saaran bay joogaan waxaan leeyahay Soomaaliland waxaanu nahay haddaanu nahay gobolka Sool xusbiga kulmiye xildhibaanadii ugu faraha badnaa waxay ka soo baxeen xusbiga kulmiye waxaanu leenahay dawladda bal arintaana aad hanalooga eego arrimaha dayacaana wax nagala qabto